magaalada Boosaaso Colombian iyo calooshadu shaqaystayaal ayaa lagu wareejiyay shacabkiina hadda u bay baraarugeen oo indhaha kala qaadeen kadib markay arkeen wargeysyadii caalamka iyo warbaahintii waaweyneed ee dunida oo si weyn u falanqeynaysa qorshaha imaaraadka iyo sidoo kale hab dhaqanka uu halkaasi ka wado shacabkii magaalada Boosaaso layfaf ayay soo furteen war waxaan dhagax tuuraan iskaga kicino war calooshadu shaqaystayaal Colombian aan iska kicino war Saciid Cabdullaahi Deni qandaraaska uu saxiixay laakiin waxba gacan ugu jiro bal wax yar xoga badan oo Puntland ayaan idin wadaa intaan idin dul istaagin ciidamada cusub ee magaalada Garowe lagu soo daadgureeyay qorshaha laga leeyahay dhaqaaqyada socda ceebtiya fadeexada Saciid Cabdullaahi Deni hortaala qandaraaskii heshiiska uu imaaraadka la galay calooshadu shaqaystayaasha Colombianka iyo waliba duulanka walaalaha Suudaan ee Puntland lagaga duulayo waxa soo dhan intaan dul istaagin bal wax yar horta codadkan aynu wada dhageysano aynu waxa way dad qaar kamid ah dadka magaalada Boosaaso oo si weyn uga dhiidhiyay qorshaha Saciid Cabdullaahi Deni ee imaaraadku isla qaateen ee magaalada Boosaaso ay ka wadaan ka shacab ahaan anagu dad reer Boosaaso ka warhaynay baashtra duulka ka seexan weynay iyo aroortii iyo duuradii ururaan bay nagu riday waa garanaysaa awalba waa ogeyn haddana adduunkii waan la arkay aan kuu sheegay xataa maamulka Puntland xeradaas waxa ka socday afaaraheeda midna ma geli karo qandaraaskaas odagu waa qaatay laakiin wax control ah ama ma garanaysaa kor joogtayna midna kuma leh waxa meesha ka socda aan ka Colombian ma deegaa doon baadega ciid ay noo hiirinaysa oo codka ay noo hiirinaya oo adduunku waxa hadaad hadasho codkaagu meel dheer gaaro isugu laamayaan inaan dhagax kaga kicino dekedaha oo meel bashiidno oo mudaharaadno aadan ku dhamaan hadaan rabne war waxaan ku nimaan hadan hooyadii qalisay hadaad aamusta wallahi billahi tallahi bari waxa sugtaa waayo dikinta ku laga dhigay wayay Saciid Cabdullaahi Deni ceebtiisa horta ilaahay ma asturin ceebtiisa ilaahay horta ma asturin wax walbo lagu heshiiyana mar walbo soo baxaya dadkuna maanta macluumaadka iyo xogta sida ay ku heli lahaayeen aad ayay u fududahay Puntland waxa ka socdo waa wax ummadda Soomaaliyeed iyo dadkii reer Puntland ee nabadda jeclaaba ceeb iyo gef ku aweey bal waan dul istaagi doonaa soo dhawaada idinkuna aragtidina ula wadaaga qaybta commentiga aan ku bilaabay codadka waad maqlayseen waa qaar kamid ah dadka reer Puntland ee dhiig iyo waxa weeye damiir kale ee ka dhiidhiyay waxa Puntland ka socda ee garanaya fahamsan waxa imaaraadku uu dalkeena la damacsan yahay dadka fahamsan weeye calooshadu shaqaystayaal Colombian ayaa magaalada Boosaaso lagu soo daadgureynaya diyaaradihii waaweynaa ee guuxu waaweynaa waxa weeye militariga ayaa saa u degaya oo waxaana sii qaadi waxaana soo qaadi duulaan qaadi sii qaadi hubka qaadi wada ogsoonayeen diyaaradii Boosaaso ka kacday ee ciidanka militariga dalka Suudaan uu ku soo riday magaalada Al-Fashar ee gobolka Darfur ka tirsan ee ay maalmihii ugu dambeeyay ku dagaalamayeen ciidanka militariga iyo kooxda RSF imaaraadku markaa dhaqaalaha malaayiinta uu galiyay garoomadan Puntland iyo dhaqaalahan uu Saciid Cabdullaahi Deni sida ugu harqinayo iyo waxa weeye ku soo noqoshada Puntland iyo dekada Boosaaso idin balaarinaya ee garoonkan idin balaarinaya wadooyinkan idin balaarinaya waxan uu waxa weeye la imaaday bilaash ma aha waxa uu kaleeyahay ba ka weyn waa inay marka dadku sida u fahmaan war imaaraad waa la yaqaanaa qofna waxba iskama siiyo hadduu wax iska balbalaarinayo baydhabo mu balbalaariyo dhuusamareeb mu balbalaariyo jawhar mu balbalaariyo muxuu balbalaarinayaa Boosaaso midda labaad mu balbalaariyo Garowe mu balbalaariyo dadkan reer Boosaaso lagu dajinaya wadu inii balaariyay imaaraadka inii dhisay dekad baa inii balaariyay imaaraadka inii dhisay hebel baa inii balaariyay oo dadkan dhaqaalalaan ay ma balbalaarsan karaan way balbalaarsan karaan dhaqaalana waa haystaan qorshahan marka qandaraaska laba geesoodka Saciid Cabdullaahi Deni iyo imaaraadku ay wada galeen waa qorshe halis badan oo gaf iyo khalad ku ah jiritaanka iyo madax banaanida ummadda Soomaaliyeed dadkii reer Puntland ee nabadda jeclaa dadkii reer Puntland ee nabadda iyo waxa weeye isku imaanshaha midnimada ummadda Soomaaliyeed lagu yaqaan inay ka shaqeyn jireen gaf iyo khalad bay ku tahay arintaas inay qaataan
ciidamo calooshood shaqaystayaala la keenay Colombia laga keenay markay tiraday rabaan iyo tayaday rabaan ay u gaadho boosaasa laga bilaabaya kufsiga iyo dhaca iyo dilka iyo urdooxa iyo waxa weeye hagardaamada boosaasa bartankeeda ka bilaabayaan taariikhdana xusi doonto waad ogaan doontaan imaaraadku markaa qorshihiisu waa sida wardal ay galeen fitmo iyo dhibaato mooyeene waxba lagama faa'iidin dadkan Puntland ee aamusan inta la shaqeeyo hadashay aad iyo aad baan ula yaabanahay oo aan leeyahay war dadka dabiirkooda xageeyay war imaaraad soo sida u galay ma hayaban war imaaraad soo kuwa waxa weeye 17 kun meesha ku dilay ee aad aragtaan ee Suudaan sida u galay ma war imaaraad soo kuwa Tanzania sida aad aragto u galay badda yar ee uu ka kireystay markuu ka kireystay fitmo iyo dhibaato dhax dhigay Soomaa war imaaraad ka leedin waxba inii qabanayaan waa kuwe ma imaaraad baa wax qabanay war wadan ay wax ka qabteen biyaad aragteen ma jiro imaaraad wadan ay wax ka qabteen oo ay tay soo galeen ay wax ka qabteen ma jiro dalkeena Soomaaliya khatar weyn ayaa ku soo wajahan Puntland baana lagaga soo duuli doonaa dadkan Puntland baana marka ugu horeysa lagu baabin doonaa haddaan hadda laga hortagin dadkan Puntland oo arinta qaata oo waliba serious u qaata inta markii laga soo tago dagaalada Garowe maanta waxaa la wareegay ciidamo la sheegay inay yihiin boolis cusub imaaraadku uu qalabeeyay iyagu ay tababareen oo ku qalabaysan waliba gaadiid cusub sida muuqaalkoodu uu u eg yahay mise sida xogaha hoose laga helaya ay yihiin iyo damaca laga maagan yahay sida muuqaalkoodu uu eg yahay waa muuqaal qurux badan gaadiid qurux badan ciidan qalabaysan waxa weeye uniform cusub qaba wiilal Soomaaliyeed weeye laakiin qorshaha hoose ee la helayo Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu gabiyahan bedelay ciidankii hore ee booliska ahaa ee Puntland madaxdii isaga ka horeysay la soo shaqeysay habdhaqanka Saciid Cabdullaahi Dani oo kaliya ma aha horay waxaaba u sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ciidankii farmaajo uu kaga tagay ayuu gabiyahanba wuxuu kala diro wuxuu laayo wuxuu shirqoolo wuxuu meesha ka saaro wuxuu meel kale uu tababar dib ugu furo ayuu ka dhigay Saciid Cabdullaahi Dani marka wadadii buu hayaa ciidanka waxay la soo shaqeeyeen waxa weeye mas'uuliyiinta isaga ka horeeyay waxay qaarkood galaangal la leeyihiin mas'uuliyiinta mucaaradka waxay sidoo kale xiriir qaarkood la lahaayeen mas'uuliyiinta dawladda federaalka waa ciidanka booliska hore waa rag siyaasadda dagalaangal u yeeshay way laakiin Saciid Cabdullaahi Dani muxuu doonayaa wuxuu rabaa Saciid Cabdullaahi Dani inuu meesha ka saaro ciidankii hore oo dhanba dhalinyaro cusub ciidan cusub meela aan likila lahayn galaangal aan lahayn waxa weeye ku faraxsan inta yar ee mishaarka loo qoray inuu magaalooyinka kulli geeyo si uusan mucaarad u dhaqaaqin nin kale oo aragti kale ama dawladda federaalka la aragtina uusan Puntland gudaheeda u joogin nin isaga ka hor imaan kara uusan u dhicin wax isaga ka hor imaanayo qof samayn karaba inuusan arag ayuu ciidankan u samaystay wuxuu u samaystay inay u dhaqan galaan heshiisyo waaweyn oo imaaraadka uu kula galay khayraadka gobolka Sanaag iyo sidoo kale Puntland wuxuu doonayaa haddii doorashada soo socota dawladda federaalka ay u suuragal weydo inuu dastuurka Puntland bedelo oo dawladda federaalka doorashada ku guuleysan waayo ama uu meel ka gala garan waayo inuu dastuurka Puntland bedelo uu jabiyo mar kale haddana uu isku caarasho oo soo galo ku cuburiyo siyaasiyiinta iyo dadka ka aragti duwan amaba danaynaya kursiga madaxweynaha inuu ku cuburiyo ayuu doonayaa ciidamo cusub ayuu samaystay marka oo intaasoo kuna in ka badan 300 askari ayaa Garowe kaliya loogu talagalay gudaheeda tira intaas kalena waa ku soo socota waa hordhac boosaaso sidaas la mid ah magaalooyinka waaweyn oo dhan ciidamo cusub baa la geenayaa kuwii hore oo dhan tababar baa dib loogu xareyno militariga lagu darayaa baadiyaha kala la iskaga saari waxa la idinku meelaha gala qaarna waxa la irtaay baatiino idinku baba shaqeyn kartaaba Dani marka qorshaha buu qaatay Xasan baana horaan sameeyo laga soo minguuriyo farmaajo ciidamadii uu tababaray oo intooda badan wuxuu meelaha ku shubiyo wuxuu dib tababar ugu furo ka dhigay marka waa habdhaqan la doonayo in lagu sii joogo oo dadka lagu cuburiyo oo kursiga lagu sii haysto weeye ujeedo kale oo laga leeyahay male ujeedo kale oo laga leeyahay mid labaad ciidan imaaraad gacan ku ugu hayo oo ku maamulayo oo mushaarkooda ku siinayo oo waxa weeye hubkii iyo saanadii iyo agab walba uu kugu samaynayo suurtagal ma tahay inay wax wanaagsan aad ka sugto
wax wanaagsan ay ku qabtaan maya wax wanaagsan kuma qabanayaan ujeedada laga leeyahay baa ka weyn waxa wanaagsan ee ummadda Soomaaliyeed anfici lahaa marka waa inay bulshadu sida ay ogaato waynu eegi doonaa muddo yar ayaa soo kala bixi doonaan wixii ka soo kordhana muuqaaladeena dambe ayaan ku dul istaagi doonaa haday nafteenu gaadho idinkuna isha ku haya isha aynu ku wada hayno waan arki doonaaba waqti dhow isbedelka iyo sidoo kale waxa aan ka hadlayno sida ay u soo baxaan baan wada arki doonaaba